mahadsantiin daawadayaal halkaad iga daawanaysaan waa Khaalid Cabdi Caydiid walaalayaal maanta waxaanu ka hadlaynaa ama barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabkeed quraanka dhaqan uga dhigan karaysaa ama xifdin karaysaa deganaanshaha iyo tamarta xoog badan ayaa qayb ka qaadata inaad si fudud wax u xafiddo waxaa jira qodobo dhowr ah oo ka caawinaya inaad si fudud u xafiddo quraanka kariimka ah sidoo kale sida ku celcelinta dhageysiga iyo kuwa kale oo badan tusaale haddaan ka bixiyo qofka ayad kursi akhrista salaad kasta kadib waxaa loo ballan qaaday jannada mar kale qofka habeen kasta akhrista ama aroor kasta akhrista suurad waaqica ay Soomaalidu taqaano suuratu idaa waqaca waxaa laga dulqaadaa karuulku ka walwalaya irsaaqadiisa abeenu ka walwalaya irsaaqadiisa marka qofkaasi wuxuu helayaa irsaaqad waasac ay ka dhigan tahay ama sidoo Ilaahay bay noo sheegay quraankiisa qofkaasi wuxuu helayaa irsaaqad waasac quraanka waxaa loo soo dejiyay in lagu dhaqmo looma soo dejin in intii mar dhaaftiya laga tago quraanka qofka maalin kasta akhrista ama habeen kasta akhrista wuxuu helaa deganaansho aad u badan wuxuuna helaa sidoo kale masniyo noloshiisa ay xoog u nasato qofka doonaya in maskaxdiisu xoog u qabowdo ama dambiyadiisu xoog loo dhaafo waxaan kula talin lahaa in quraanka kariimka ah xifdiyo sidoo kale waalidku waxaan jeclaan lahaa in carruurtooda quraanka xifdisiyaan sababtoo ay tahay qof kastoo weyn oo naga mid ah wuxuu ka shaqeeyaa inuu yaraantiisa xifdin waayo ma ahi qof weyn laakiin yaraanteeda inaan xifdiyo ayaa ay fiicnayd halka aan bilooyinka soo dhaafay ama isku dayay inaan quraanka kariimka xifdiyo waxaa jira tallaabooyin badan oo aniga iga caawiyay in aan xifdiyo quraanka kariimka ah Ilaahay dhammaanteen hayna wada xifdiyo quraanka kariimka ah waan rajaynayaa in idin la wadaagi doono dhammaantood halkan insha Allah saaxiib ayaan ku ahaan doonaa